dhammaan ardayda iyo dadka kale markaa ku xidhan ba channelkeena waxaan idinku salaamayaa salaanteena qaaliga islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan insha Allah idin soo gudbin doonaa koorskeena Human Anatomy ee inoo socday chapterkiisii saddexaad ee lagu magacaabo markaa tissue ama nude. Sida socod wanaagsan. Learning objectives. أهدافta aynu ku baranayno chapterkeenan waxa weeye at the end of this chapterkan markuu dhamaado the students ardaydu should be able to inay awood u lahaadaan inay markaa introduction tissue horudhac ka bixiyaan nudayaasha, inay describe types of tissue, inay sharaxaan noocyada kala duwan ee markaa nudayaasha loo qaybiyo, iyo explain inay sharaxaad ka bixiyaan location goobta iyo markaa function shaqada of tissues nudayaashu in the body ay jirka u qabtaan, shaqada iyo meesha ay kaga yaalaan iyo markaa waxyaalaha markaa u qabtaan jirka inuu markaa ardaygu markaa sharixi karayo markuu chapterkan uu dhamaysto. Introduction tissue horudhac haddaan isla fiirino. The human body jirka bini'aadamku is a complex structure composed of different levels of organization. Jirka bini'aadamku wuxuu ka kooban yahay qaab dhismeed isku dhafan kaasoo markaa leh different levels of organization, heerar kala duwanna leh. heerarka kala duwan uu markaa jirku u kala qaybsama leh. Waa jirkanu meel buu ka soo bilowmaa ilaa markaa noqonayso bini'aadanka dhamayska tiran aad noqonayso. Jirkanu wuxuu ka bilowmaa sida la og yahay starting with the cells, unugyo ayuu ka bilowmaa. Unugyo markaa isu tagay ayuu ka bilowmaa. Unugna markaa waxa la radaa waa basic unit of life, waxay markaa noloshu ka samaysan tahay. Aasaaska nolosha ayaa waxa la radaa waa unug. Marka bini'aadanku wuxuu maraa heerar kala duwan sida Quraanka Ilaahay ku sheegay subxaanahu wa ta'aala. bini'aadanku marka hore nutfa ayuu ka bilowmanaya suma nutfa, hadhow mar aakhirka wuxuu noqonayaa marka qofkaasi suma insaanan mustawiyan, marka bini'aadan markaa dhamaystiran. Haddaan u galno cells group together, kooxo unugyo ayuu isu tagayba to form waxay sameeyaan tissue sameeya, nudayaal sameeya ama nuda sameeya, which perform kuwaasoo nudayaashaasoo markaa gudanaya specific functions, shaqooyin markaa khaas ah gudanaya. What is a tissue? Muxuu yahay markaa tissue? Muxuu yahay tissue? Waxa weeye waa a group of similar cells, waa kooxo unugyo ayuu isu eeg kuwaasoo that work together si wada jira u shaqaynaya to perform specific functions, si shaqo markaa khaas ah u gutaan. The study of tissue, barashada cilmiga la baranayo tissue-gana is called waxa lagu magacaabaa histology baa la yiraahdaa. And there are sidoo kale waxaa loo qaybiyaa four main types, afar nooc oo muhiim ah ayaa jira oo tissue-ga loo qaybiyo. Tissue-gaasoo markaa laga helo in the human body jirka bini'aadanka markaa laga helo. Afartii nooc baan markaa u gelaynaa. Ta koowaad waxaa la yiraahdaa epithelial tissue baa la yiraahdaa. Epithelial tissue-gu covers markaa wuxuu daboolaa body surface, oogada sare markaa jirka. Sidoo kale lines waxa uu kala u daboolaa body cavity, muqorada jirka, and ducts iyo tumbooyinka. And form sidoo kale markaa wuxuu sameeyaa glands markaa ayuu sameeyaa qanjidhada. They are subdivided, waxaa loo sii qaybiyaa qaybaad hoosaad baa jira loo kala qaybiyo markaa epithelial tissue-ga. Laba qaybood baa ugu muhiimsan oo covering and lining epithelium, mid guudka sare daboola iyo mid markaa glandular epithelium oo qanjidhada markaa sameeya. Haddaba guudka sare daboola wuxuu markaa isagu daboolaa covering of external body surface, oogada sare jirkaagana uu daboolaa. Waa taas waa kow. Sidoo kale waxaa kale uu daboolaa qaybo ka mid ah internal organskaaga, xubnaha gudaha ku jira xitaa qaybo ka mid ah ayuu korkooda sare xitaa daboolaa. Haddaan u galno glandular epithelium-kuna waa their main secretion, shaqadooda khaaska ee muhiimka waxa weeye waa secretion, inay wax soo daayaan. Galaan qanjirkuna may consist wuxuu ka kooban yahay of one cell, hal cell ama hal unug, or ama group of highly specialized epithelial cell, ama wuxuu ka kooban yahay kooxo unugyo oo markaa epithelial cell la yiraahdo markaa isu tagay. Haddaba glandisku ama qanjidhadu can be classified, waxaa loo kala qaybiyaa into exocrine, kuwa la yiraahdo markaa exocrine, and endocrine, iyo kuwa markaa la yiraahdo endocrine baa loo kala qaybiyaa according markaa iyadoo loo eegayo qaybitaanka la kala qaybinayo to where they release their secretion, xaggi markaa secretion-kooda ku soo daayaan ayaa markaa loo eegaya. Kuwa markaa waxaa jira exocrine la yiraahdo, iyagu kuwa exocrine-ku waxay secretion-kooda raaciyaan tumbooyin bay raaciyaan. Kuwa waxaa jira endocrine waxay markaa secretion-kooda iyagu raaciyaan qulqulka markaa dhiigga. waa tan iyadoo sharaxaad laga bixinayo. Exocrine-ku waxa weeye those glands waa qanjidhadaasoo that empties ku mariya their secretion-kooda into ducts, waxay dhex raacinayaan
tuumbooyin bay dhex raacinayaan waxay markaa secretion hayaanba endocrine-kuna they ultimately say u dhan yihiin secrete waxay soo deynayaan their productiga maxsuulka markaa ka soo baxaya intu waxay markaa dhex raaciyaan iyaguna blood systemka qulqulka dhiigga ama habdhiska markaa dhiigga ayay markaa raaciyaan waayahay talabaad haddaan u galno connective tissue baa la yidhahdaa connective tissue waxa la yidhahdaa waa one of the basic tissue types of the body waxa la yidhahdaa waa ta keliya ti basiga u ah noocyada nudayaal ee markaa jidhkeenna laga helo as it is name implies sida uu magaciisu markaa tilmaamayo connective tissue-gu is a term waa ereygaasoo gifanina siinaya to several body tissue dhammaan nudayaasha jidhkoo dhan wuxuu siinayaa that connect inuu markaa isku xidho support taageero and help sidoo kale wuxuu ka caawinayaa binding other tissue nuda kastaaba nudaha kale inuu qabsadana ay isqabsadaan isagaa markaa ka caawinaya shaqooyinkaasu haya functions of connective tissue haddaan isla yara fiirino bal shaqooyinka connective tissue-gu markaa qabta haddaan isla yara fiirino supporting organs and cells waxa markaa uu taageeraa xubnaha iyo markaa unugyada transporting markaa wuxuu gaadiid u yahay uu qaadaa nutrientska nafaqooyinka iyo markaa wastiska qashinada defending waxa uu markaa difaacaa against pathogenska sidoo kale waxa uu markaa inaga difaacaa xanuunada markaa inuu soo weeraraya xanuun sababayaasha markaa inuu soo weeraraya tusaale maxaa ka mid ah bakteeriyadii fayraskii fangayga dhammaan waxaasoo dhan markaas uu ka difaac kaaga noqonaya storing fat waxa uu markaa kaydiyaa dufanka ama duxda ayuu kaydiyaa repairing markaa wuxuu dayactiraa damaged tissue nudayaasha markaa dhaawacmayna isaga markaa dayactira daraar waxaa jira 3 classes 3 class oo loo kala saaro markaa connective tissue-ga blood connective tissue mid la xiriira markaa dhiigga la xiriira bones connective tissue mid markaa lafaha la xiriira cartilage connective tissue mid markaa la xiriira carjowda la xiriira way haddaan u galno blood connective tissue-gu waa blood waxa la yiraahdaa waa specialized connective tissue bulay amal nudayaal wax isku xira oo khaas ah ayuu leeyahay kuwaasoo ka dhex shaqeeya within the circulatory systemka habdhiska wareega dhiigga ka dhex shaqeeya shaqadooduna ay tahay inay transport gareeyaan blood cellska ama qaadaan gaadiid u noqdaan blood cellska unugyada markaa dhiigga sidoo kale waxay dissolving substance ashyaadii ku milneedna way qaadaan ashyaadii dhiigga ku milneedna way markaa qaadaan throughout iyagoo markaa geenaya dhammaan markaa the body jidhka fiya iyagoo markaa u sii dhex maraya blood vessels-ka dhuumaha markaa dhiigu maro ayay markaa u sii dhex marayaan way haddaan isla fiirino bones connective tissue bone tissue is a type of connective tissue waa nooc ka mid ah connective tissue-ga taasoo consisting ka kooban mainly of collagen badi waxay ka kooban tahay collagen amal waa protein ayay ka kooban tahay collagen matrix-kaasi waxa uu markaa isaguna ka samaysan yahay mineralized amal uu macdanaysan yahay macdanta markaa uu ka kooban yahayna waxa weeye calcium iyo phosphorus labadaas ugu muhiimsan uu markaa ka kooban yahay way haddaan u galno cartilage connective tissue-guna cartilage waa carjowdaasi waa is strong waa mid xoogan flexible ah oo leexleexan karaysa taasoo that protect ilaalisa your joints kala goysyadaada and bones iyo lafahaaga an important structural component of the body waa structure ama qaab dhismeedka ugu muhiimsan markaa jidhkaaga weeye marka la qaybinayo jidhkaaga qaybta ugu muhiimsan bay ku jirtaa cartilage-ku haddaan isla eegno shaqada cartilage-ku qabto protective markaa wuxuu ilaaliyaa your joints-ka kala goysyadaada and bones-ka iyo lafahaaga wuxuu markaa taageeraa kala goysyadaada their shape hadday noqoto markaa qaabkooda while moving markay markaa dhaqaaqayaan ama soconayaan reducing frictionska amal isliskana markaa way yaraysaa cartilage-ku carjowdu isliskana markaa way ka qayb qaadataa inay markaa yarayso way muscle tissue aanu nimaano oo tii saddexaad ah muscle tissue consist isaguna wuxuu ka kooban yahay highly specialized cells salal khaas ah ayuu markaa ka kooban yahay kuwaasoo markaayna siiya socodka joogteeyana postureka qofka ama qaabka qofka soona saara markaa heat soo saara ama kuleel jidhka u soo saara haddaba muscle tissue-gu are grouped markaa waxaa loo kala qaybqaybiyaa si qudhiisa skeletal cardiac smooth muscle tissue amal saddexdan nooc ayaa loo kala qaybiyaa bal iyagoo faahfaahsan aanu nimaano types of muscle tissue noocyada muscle tissue aanu nimaano skeletal muscle tissue baa ugu horeeya amal waa nudaha la xidhiidha muruqa ah
marka la xidha lafaha la xidha kan are attached kaliya wuxuu ku dhagan yahay to bones lafaha ayaa laga helaa it's a voluntary waa mid adigu maamuli karayso camal maamulkiisa aad adigu u hayso hadaad fadhiisanayso hadaad istaagayso hadaad kacayso hadaad gacantaada soo laabayso hadaad gacantaada fidinayso dhammaan intaba waa voluntary adiga maamuli karaya cardiac muscle tissue-guna it forms isagu wuxuu ku samaysan yahay the wall of the heart gidaarada wadnaha ayuu ku samaysan yahay isagana markaa waa it's a involuntary adigu markaa ma maamushid smooth muscle tissue-guna located waxaa laga helaa goob ahaan in the wall of hollow internal structure ayaa laga helaa camal hollowga structural hollowga gidaarada midda kale god kale sida ay ka mid yihiin markaa blood vessels waa meel god oo kale oo dhuumahaas oo kale marka iyaguna waxay ka samaysan yihiin markaa smooth muscle tissue ka samaysan yihiin sida stomach oo kale caloosha oo kale intestine-ka mindhicirada oo kale iyo urinary bladder-ka kaadihaysta oo kale dhammaan intaas oo dhan markaa waxay ka kooban yihiin smooth muscle tissue ka samaysan yihiin muruqaasna waa it's involuntary oo adigu ma maamuli karaysid maamulka adigu ma haysid muruqaas taafraad haddaan u galno nervous tissue contains markaa wuxuu ka kooban yahay two principal cell types laba nooc oo sal ah oo muhiim ah ayuu ka kooban yahay these are waxay markaa kala yihiin the neurons and the neuralgia the neuronsku waa nerve cellski neuralgiaduna waa supporting cells oo way taageertaa waa unugyadii markaa taageerayay weeye neuronsku are nerve cells weeye waa nerve cells baa la yidhaahdaa sensitive markaa waxay dareemaan to various stimuli carasyo markaa kala duwan ayay markaa dareemaan it convert stimuli caraskiina markaa waxay u bedelaan to nerve impulse bay u bedelaan camal fariin jawaabeed bay markaa u bedelaan it contains markaa waxaa loo kala qaybiyaa three basic portion saddex qaybood oo markaa basic ah oo muhiim ah ayaa loo kala qaybiyaa waxayna kala yihiin cell body axon dendrite markaa sidaad sawirkanba ka aragtaan dendrite-ka ayay fariimuhu ku soo horeynayaan camal xadhkaha yaryar ayay fariimuhu ka soo gelay markaa jirka ka imaanaya ayay markaa nervuska markaa wax turjumaya maskaxda halkaas bay markaa ka soo gelayaan dendrite-ka xadhkaha yaryar xadhkaha yaryar dendrite-ka ee eedu ku qoran tahay marka ka soo galaan qaybta B-da ee cell body ku qoran tahay ay isugu imaanayaan halkaas uu halka ka dhacayso turjumaanta in la turjumo ma biyaad u baahan tahay ma xanuun baad dareentay ma wax kugu soo socdaad markaa ka jawaab celinaysaa ma wax kala kugu dhacay dhammaan wixii ku dhacay halkaas laga turjumaya marka la turjumo waxa la raacinayaa usha dheer ee loo yaqaan axonka ee xarafka C ku qoran tahay aad aragtaan kaasa markaa la raacinaya axonka marka la raaciyo hadhowba markaa iyagana waxa ka sii dhex qaybsamaya xadhka kale fara badan oo kuwaas qaybtii biyaha u baahnayd qaybtii u baahnayd markaa in dareemayaasha qaar ka jawaabto qaybtii markaa u baahnayd inuu markaa qofku ku fakaro inuu markaa waxa sameeyo dhammaan waxaas oo dhan halkaas la wada marinaya war muuqaalkeenu intaas uu ku eegyahay chapterkeenu aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh